السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا يوتيوب جنال كينا قفت إذن الله سوا أسماء هل كان نقل سعطان أما نقل جيسينيسا نوا جنال كينا أسماء جنال داود هدي تامرك أورسي أتصوبو قطر جنال كان بليز سبسكرايب كنا صار حتى هوري إيلا جوكتين وادكم هسنتايا كلها هاي سودو لايك تهنجي إلاون أصحابي سيدان وقبرتين عاو حايدين وذا قصة عصب قصة أي عاو حاي كسعتها قبر لي راه وفاء waxayna ka dhacday wadankaas Ciraaq qisadan ayaa waxay dhacday 1997 waxayna ka dhacday mandiqad ama magaalo la yiraahdo Suwayra oo ku taalo dalkaas Ciraaq Suwayra ayaa waxay u jirtaa caasimadda Baghdad 130 ilaa 140 kiiloomitir mandiqadan ama magaaladan ayaa waxay uga duwaneyd magaalooyinka kale inay ahayd magaalo aad u qurux badan oo dhul beereed ah oo barwaaqo sooran ah oo maasha Allah oo ayada dhan wada green ah ama cagaar ah waxa dhacday qisadan waxa nooga sheekeynaysa maamo weyn oo da ah waxay leedahay Wafaa oo ah gabadha qisada ay ku socoto waligay ma arag gabar ka qurux badan oo ka akhlaaq badan oo ka dabci wanaagsan waxay ahayd beetri gabar aad u qurux badan oo maasha Allah Wafaa waxay la nooleed 6 wiil oo ayada la dhashay oo iyo hooyadeed iyo aabaheed iyo hooyadeed gabar ayada ah ilmaysa qabin waxayna ahayd gabadha ugu yar oo reerka oo aad loo koolkooliyo waxa dhacday muddo yar kadib aabaheed inuu geeriyoodo aabaheedna wuxuu ahaa dadka ugu hantida badan magaaladaas nin Ilaahay hanti siiyay oo maasha Allah beero haday ahaan lahayd hanti nooc walba ah wuu lahaa ninkaas maasha Allah hooyadeedna sidoo kale qof hanti leh bay ahayd Ilaahay amarkiis markuu odaygii dhintay hooyadeed waxay noqotay mandiqadaas ama magaaladaas dadka ugu hantida badan oo ugu taajirsan ay maamadii noqotay maamadii si fiican ay carruurteeda u soo tarbiyeysay wiilasheeda gabadheeda maasha Allah waxay sameyn jirtay maamadu wiilkii 18 gaara oo waxbarashada dugsiga sare ka dhameysta waxay dhigi jirtay hantidan beertaas qaado gurigaas qaado gabar bay u goorin jirtay sidaas ayuu maaragtay wiilkaas ku degi jiray Ilaahay amarkiis waxa dhacday 6deeda wiilba markay u wada guurisay oo qof kasta ay hanti farta ka saartay in ay maalin wiilasheeda isku yeertay oo tiraahday aniga hadaa dhinto kale qof noolaanaya ma lahan laakiin aniga hadaa dhinto waxaan maaragtay idinkaga tagay oo amaano idinkaga dhigay gabadheeda Wafaa Wafaa gurigan hadda weyn aad joogno iyada ayaa siiyay iyada ayaa iska dhaxal idima noqdo wax dahab aniga aan leeyahay iyo wax dahab iyadu ay leedahayna dhaxal maahan oo kama qaadan kartaan ayadan siiyay walaashiina ogaada ayay tiri Ilaahay amarkii wiilashu waxay dhaheen hooyo anaga walaasheena waa jecelnahay anaga madaxa noo saaran tahay ina ayada hantida beeraha wax walba ayada ina siino baaba diyaar u nahay in waxyaalahaas aan hadhow maaragtay hadii adiga meesha ka baxdid dad dib ugu soo noqonaya manihin ayay dhaheen Ilaahayna waxaan ka baryaynaa inaad naga tagin oo aad korkeena ahaatid adigu waxa dhacday muddo yar 7 bilood kadib inay maamadii geeriyootay haday maamadii geeriyootay wiilashii gurigaas weyn ayaa la isku yimid oo lagu wada noolaa si gabadha loo ogaado nin kastana xaaskiisa guri weyn oo qasri ayuu ahaa gees ayuu uga noolayd waxa dhacday maadaama maamadii meesha ay ka baxday gabadhan gabar aad loo koolkooliyay ahayd wiilashii qof kasta hooyo dardaarankeeda haystay qof kasta gabadhii madaxa u saarneed Wafaa haday tashi rabaan wax walba ayada weydiin jireen oo gabar ay aad u jecel yihiin ahayd oo gabar ku dheer reerka ay ahayd odaygii iyo habartiina maadaama ay meesha ka baxeen geeriyoodeen waxa dhacday in maaragta
gabdhihii guriga la joogay oo walaalaheed ay soo guursadeen inay gabadhii maaragtaa ay ximiyaan. yacni Wafaa iyada yacni qof waxaa iska ahayd, qof yarna way ahayd, cuntada wax walba wixii lasoo diyaariyay ayay geesteeda ka cuni jirtay. dee qoftaas hantida badan ilaahay siiyeyna yacni way ahayd. adugu waxaa lagu xasday gabadhii oo looga maseeray 6 wiiloo garabkeeda taagan, yacni dhaqaalahan bay uga maseereen dumarkii guriga joogay oo walaalaheed soo guursadeen. adugu way u tashteen, kolley 6doodii way tashteen. adugu sida gabadhan maaragtaa yacni sumcadeeda loo haleyn lahaa. waxaa dhacday sidii gabadha Wafaa walaalaheed markay yimaadaan waxaa lagu isku wada arki jiray meesha cuntada guriga waa la arki jiray iyadoo meelaha marmareysa. muddo 2 bilood ah gabadhi may soo bixin, guriga kama soo baxdo, qolkeeda kama soo baxdo, qolkaas iskaga jirtaa. wiilasha walaalaheeda waxay dhahaan gabadhii Wafaa ahay way fiican tahay, qolkeeda ku jirtaa, dabcan way iska caajisan tahay. maalin maalmaha ka mid ah ayaa wiilasha 6 ah ninka ugu weyn xaaskiisa ayaa waxay tiri hebel waxaa rabaa maanta inaan kula hadlo, aad ayaan uga xumaa inaan arrintaa kuula imaado. muddo badan waa qarinayay, muddo badan waa iska aamusnaa, laakiin intaa ka badan ma aamusi karo because sumcadaada iyo sharaftaada ayay ku xiran tahay. wuxuu yiri maxaad ka hadlaysaa, arrintaa ka hadlaysa maxay tahay, hadalka si fiican iigu jilci. waxay tiri Wafaa yacni waxaa dhacay. Wafaa markay tiri kusoo boodo wuxuu yiri Wafaa maxaa ku dhacay, Wafaa dhibka haysta muxuu yahay. waxay tiri aniga aadaan uga baqayaa inaan kuu sheego arrintan, yacni waa arrin sumcadiina ku saabsan iyo sharaftiina. wuxuu yiri Wafaa iyo sumcadeena ahaa maxaa dhacay. wuxuu yiri arrintaas ha ku degdegin inaa maaragtaa walaashay Wafaa aad wax ka sheegtid ama wax sharafteena iyo wax iyada faarahaas inaad ka hadashid ha samaynin, hana ku degdegin because waxaas inay been tahay baa ogahay. waxay tiri wax been ah ma lahan, wax kasta indhahaaga ayaa ku arki doontaa, orod soo fiiri ayay tiri walaasha. way baxdaa markasta aad yacni aad tagtaan marka idinka shaqada aadaan. igaraa lahada saxaabay oo yara xanuunsanahay. yacni waxay tiri markasta oo shaqada aadaan walaashiin way idinka daba baxdaa, wayna soo wareegtaa, xilli dambe ayayna timaadaa. waxaana dhacday bay tiri hadeer in maaragtaa walaasha inay uur leedahay saa ku ogow. wuxuu yiri Wafaa miya uur leh, wuu yaabay yacni wuu qariibsaday. adigu wuxuu sirin qoftaan been ayay kuu sheegaysaa. orod wuxuu ku galay qolkeedii, mise waaba runo qoftaan yacni shaash yacni shalmad weyn yacni ama shaal weyn ama gabsaar weyn ayay gab isku siisay. wuxuu ku dhahay yacni maxaa khaldan, Wafaa maxaa dhacay. waxay tiri waxba maxaa dhici lahaa. wuxuu yiri calooshaan weyn maxay tahay. waxay tiri saana iska noqday, waan iska xanuunsaday, muddo 2 biloodna waxaan usoo bixi waayay idinka baqaayay. wuxuu yiraahday meeshii ayuu wuxuu ku dhuftay oo jirdil ku sameeyay oo yacni meeshii buu wax ku dhuftay oo xanaaqay oo qiiliyay oo u qaadan waayay oo walaashiis meeshii ayuu ku garaacay. waxaa maqlay wiilashii kale oo guriga joogay maxaa dhacay bay dhaheen maxaa ka khaldan hebel maanta. wuxuu yiraahday walaashiin saasay samaysay, gabadha walaashiina gabar akhlaaq badan oo shariifad ah oo maasha Allah ayaa moodaynay, waa kaas saasay samaysay ayuu dhahay. adugu waxaa dhacday wiilka ugu yar wiilasha oo iyadu ay aad iskugu dhawaayeen yacni isfahan ahaan xagga isfahamku aad isku yacni jeclaayeen ayaa waxaa dhacday inuu yiri wiilal joojiya dilka buuqa waana ceebaysan xaafadii iyo yacni magaalada nagu ceebaysan u joojiya qaylada iyo buuqa yareeya, xal ayaa raadinaynaa. walaashin haddaa rabtaan oo ay khaladka ku aragteen waa dili kartiin, laakiin arrintan horta joojiya hadda dilkan iyo waxaan. aduu waxaa dhacday sidii ayuu wiilkii yaraa wuxuu yiri arrintaas barorta joojiya. aduu kii yaraa ayaa ka xigsaday maaragtaa wiilasha. sidii ayaana waxaa dhacday maaragtaa in wiilasha ay soo baxeen qolka ayagoo wada qaracansan oo xanaaqsan oo qaylinaya. wiilkii ugu yaraa inuu yiraahday abaaye kaama filayn maxaa kugu dhacay sidaan. waxay tiri wallaahi wax aniga aan sameeyay inaysan jirin, waa iska xanuunsanahay,
caloosha saan iska keen noqotay ma garanayo wax iga khaldan waana usoo bixi waaye banaanka waxaan ugu soo bixi waaye waxa waaye yacni inaa maaragtaa baqayay oo ama wiilasha walaalaha ee kaa shakiyaan wax kale kuu fahmaan aniga wallahi anoo saana is arkay wuxuu yidhi weli been baaba sii sheegaysaa miyaa wuu kasoo baxay saan kaama filaynin adugu wiilasha way tashteen waxaa lagu tashtay in maaragtaa qoftan yacni qof dhaqan xun ula timid oo yacni in maaragtaa sidaas lagu dilo waana dhaqan ka jira xagga gabadhii yacni ninka waxaa laleeyahay sharaftiisa waa inuu gabadhii saa u ceebeysay oo yacni waxa kaliya uu sameyn karo waxa waa inuu dilo ma fahanteen wala saas gabadhaa lagu dilo aduu waxaa dhacday in maaragtaa wiilashii ay tashteen xaasaskoodii inay u yeeraan ay dhaheen haddii arrintaas aa banaanka u saartaan yaa yacni iska jira mana sheegi kartaan mana arrimahaas afaarahaas nama geli kartaan wafaa waxay u kaxaysteen wiilashan subax fajriga xilliga markuu fajriga soo dhawaa ayay kaxaysteen waxayna u kaxeeyeen beero waaweyn ayagu ay lahaayeen ayay dhexgeeyeen meel aada uga fog yacni dadka oo beero waaweyn ah ayaa la dhexgeeyey waxayna dhaheen yacni inay si usoo dilaan ayay u wadeen wiilasha adugu wafaa markii saa loo geeyey meeshii waxay ku tiri waa idin baryayaa walaalahay aniga waxay dhahdo ma sameynin waxba ma sameynin wax khalad ah oo yacni mamnuuc ahna ma sameynin aniga saan anoo ah ayaa is arkay iyo aamina adugu way diideen waxay tiri hal arrin ayaa idinka codsanaya halka arrin ayaa idinka codsanaya waxa weeye qof kasta yacni umniya ayuu leeyahay ama riyo ama yacni hal wax ayaa idinka codsanaya maadaama ay dilaysaan oo aanan noolaanaynin midda aan idinka codsanaya ayaa waxay tahay inaa ii ogolaataan inaa 2 ragacoo sunno ah tukado oo salaad ah waxay dhaheen oo ma salaad baa tukanaysaa dembiga la arkay ta gashay oo khaladka la arkay salaad baaba xasuusanaysaa yacni istiqraab baa ku dhacay yacni way qariibsadeen ayaga mid ka mid ayaa wuxuu yiraahday tusaasoo kale usoo tuuray oo gaariga uga soo tuuray oo dhagax dhulka yaala saa ugu tuuray xabad ayuu wuxuu yidhi salaad baaba noo yacni naleeda waa tukanaynaa ta waxaa aragtay samaysay markaasay wiil ka mid ayaa wuxuu leeyahay khaaruufka yacni ama yacni wankaba marka la qalayo biyaa la siiyaa ma fahante marka waxay rabto aan u sameyno adugu gabadhi soo tuuritaanku soo tuuray xabad ayay u dhacday dhagax meesha yaala ayaa barta caloosha ka muday waxaa dhacday gabadhi inay meeshii ay mantaq sameyso yacni ay soo matagto matag saacad soconaya yacni inay ilaahay amarkiis meesha qasar yacni arrin rabbaani ah ayaa mucjiso ayaa meesha ka socotay inay soo matagto maxay matagtay waaye waxay matagtay wax madow oo cagaar ah oo aad looga boqayo oo yacni urkiisa aad u xun yahay yacni aad u urxun yacni xun yacni ka urayo ayay gabadhi soo matagtay oo ay ka buuxaan timo yacni cagaar yacni us camal ah ayay soo matagtay wiilashii saasaa kasoo wada hartay si u fiirinayeen gabadha si uma tagayso sida u dhibaatoonayso yacni si xanuun ah ayaa dhagaxii caloosha uga dhacay xanuun yacni zaa'id ayay dareemaysay matagii ay matagaysay waxaas ayay soo matagtay midoobaadka ah oo aad u badan haddana yacni kimiyo badan yacni ah meeshii ayaa waxay dhaheen wiilashii way isfiirfiirsheen maxaa dhacay timaaba ku jirayba wixii ay gabadha soo matagtay adugu sheekh ayay u tageen waxay ku dhaheen sheekh arrintaana dhacday maxaa weeye wuxuu yidhi waxaa la dhahaa sixrul aswad yacni sixirkii midoobaa weeye weliba sixirka waa kan nooca ugu xun weeye oo la cuno gabadhan sixir ayaa la cunsiiyey wuxuu yidhaahday yaa cuntada u kariya xagee bay wax ka cuntaa wuxuu yidhi gabadheena weligeed allaheed jika maysa karin cunto maysa karsan waa mid gurigeenana cid kale kuma noola waxaa ku nool uun xaasaska annaga aan qabno waxaa kaloo jirta gabadha walaasheena tay banaanada u baxdo kama soo cuntayso weligeed banaan kama soo cuntaynin marka waxaan xagee ka yimaadeen ayaa is leedahay sheekh wuxuu yidhi dabcan dadka cuntada kariya ayaa arrintaas sameeyey waana sixirka nooca la dhaho sixrul aswad yacni sixirka midooba oo weliba ma'kuul yacni midka la cuno sixirka ayaa mid waa lagu daadiyaa qofku wuu dul maraa
يعني sixirku wuu kala duwan yahay laakiin kan waa mid cunto ahaan loo siiyey oo afka ay ka cuntay marka alxamdulilah hadiiba ilaahay uu yani kasoo matajiyey ayuu yiri sheekhi ayaga yani wiilashii waa isku naxeen waagi ayaa ku baryay meesha ayay gabadhi walaashooda soo qaateen ay dheheen abaay naga raali ahow yani oo qaraacmeen isku ooyeen aduu guriga ayay kusoo noqdeen guriga ayay markay kusoo noqdeen يعني ناجيه كم سرسنا قبل يرتا أو يعني هنتيذا يعني وناجيذ أخلاق ذا أو جرجة شوقة أيو كسر نقدين مركز حدين محدعي وسكوي يارن نكست ناكتيس أيو ياري وحليري إن يعني ومتكست ناكتي أيو ماشي كفري وجرجة هو يضد أي تجاري القاضي لجو عليه إن وحين كلها ولا شط مجور سنة إنه ilaa aad adiga noloshaada ka maareysid ilaa adiga maaragta aad xataa kaala tashano qoftan gursaneyno adu saas ayay dhaheen ilaahay amarkiis waxaa dhacday in maaragta muddo yar kadib wafaa uu nin soo doonay nin aada u fiican oo akhlaaq badan oo maasha allah oo isagana hantiile ah inuu soo doonay way u yeereen waxay dhaheen anaga shuruud ayaan wadanaa shuruudda aan wadana waxa weeye gabadheena gurigaas qasriga ay dhex joogto inaada meel uga saarin oo qasrigaas ku dhex qabtid adugu shuruudihii dhan wuu aqbalay waxaa dhacday in loo diyaarinayay arooskeedii waa aragteen gabdhaha markii yani aroos loo diyaarinayo oo la gelbinayo waxaa raaca dumar yani hooyadeed walaasheed habriirteed yani qof dad dumar oo macquul ah ayaa raaca oo arinta la diyaariya waxay tageen meel maaragta yani dadka diyaariya aroosyada haday ahaan lahayd taashashka haday ahaan lahayd timo dhisista adugu koofeerada adugu qolooyinka maaragta kambaniyada oo maamulo aroosyada ayay u tageen si ay arooska gabadho walaashooda ugu maamulaan markii ay yani qoftii meesha haysatay oo meesha managerka ahayd ay u gashay wafaa يعني waxay aragtay laba wiil oo walaalaheeda ayaa geesaha yani 6 wiil oo walaalaheeda ayaa markii hore geesaha saawad istaaga 3 yani oo arinteeda loo dhameynaya markaasay waxay tiri maxaa dhacay adugu waxaa dhacday way la yaabtay qoftan oo naag dhan aysan la socon way aad bay ula yaabtay adugu waxaa dhacday in maalmihii dambe maalin baa shaqo loo qabtaa maalin koofeerka tinta yani koofeer timaha loo hagaajiyaa maalin shaqo loo qabtaa yani waa shaqooyin saas ah maalinkii timaha loo hagaajinayay ayay waxay aragtay aad bay wax ugu daaheen meesha markaas banaanka u soo baxday naagtan waxay aragtay laba wiil oo aan saa u furfadhiya rabsashanka oo dhaqaaqeen oo sugaya wafaa markaas waxay ku soo noqotay waxay ku tiri gabarey maxaa dhacay oo dadkan nimankan maxay kula socdaan waxay tiri oo qof gabar dhan ma haysatay miya waxay tiri anaga familkeena meeshan ma degana familka ninkeyga un baa jira dumarka xagga ka socda ninkeyga cida ahayn ma haysto hooyaday way dhimatay يعني أبيه يقول أنت ويلش أولى هي أيام زولي سيدس أيه إيدا مسعودان يعني سيدي بودي كارك أي لو ده جيسا أو استاجي مركا لو ده ويلو ولا له هذا وماشي فنية أي أركتي أو قفطان أو ترمحاد عي واحد تدي قصة أيه يودع عليه واحد مدير كهر قصة يدا أيه واحد هد بيت السودان يعني قصة هالدير عن نيجس وشيكي أي وشيكيسي قصة أيه ما مدرسة قصة وسوق بيسي مركا أصحابي أنت قصة لما إسكجي مارينا وحائد اللي هاي قصة وفاء سيدس أي كل ماتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسم قل ضمبة إيه اسقصوا نقش ضمبة وحيسة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.